qaar ka mid ah buuraha waaweyn ee koonfurta magaalada Hargeysa ku yaala waxa muddo dheer ka socotay gooyn iyo banayn lagu hayo buurahaasi iyadoo dad shicibihii ay ka dhex raadinayaan dhul. Halkani waa degmada Maxamed Mooge ee magaalada Hargeysa waxa si ba'an loo jaray isla markaana loo gooyay buuraha ku teedsan qaar ka mid ah waxaana dumay qaybo ka mid ah buurahaasi. Carrada buuraha laga guro ayaa waxa laga iibiyaa magaalada Hargeysa iyadoo dhinaca kalena balogyo dhul ah laga dhaxseestay buurta dhexdeeda. Arrintan oo halis weyn ku haysa shacabka iyo deegaanka ayaa mas'uuliyiinta dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ilaa iyo hadda aanay ka hadal sidoo kalena aanay waxba ka qaban. Dhinaca kale wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta oo hore u ballan qaaday in ay joojin doonto halista goynta buurahaasi ayaan ilaa iyo hadda ka qaadin wax talaabo ah. Siyaasi Xuseen Badmaax oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland ayaa ka hadlay dhibaatada iyo burburinta lagu hayo buurahaasi isagoo xukuumadda baaq u diray. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. saaka waxaynu joognaa xaafadan Maxamed Mooge baryahanba waxa leeylay imanayeen maqlaayay oo shacabka degan aan ka maqlaayay buuraha ku xeeran saddexda buureed Maxamed Mooge ku xeeran oo aad ciid looga qaado la qoday oo underground taan naga dambayso kale waxa mid moodaa meelo fara badan oo underground in la gaaray oo laga qoday ciidda meesha laga qaado dadka ka shaqeynaya nimada cagafyada wada ayaan wareysanay marka waxa ay noo sheegeen in ciidda la guro la iibiyo iska rogadiiba 200 oo kun oo land laga siiyo waa buuruhu waa nature-ka Ilaahay ina siiyay ay dhul ee ka mid ah dhulka ee quruxda dhulku ku yeesho waa aragtaan sida loo galay buurta sida loo galay ee loo qoday ee ay soo dumayso ee inta yar sare ee xagga sare ay ka hadhay marka waxa weeye waxa ka masuula buuraha dhulka waxa ka masuula waa xukuumadda weeye gaar ahaan wasaaradda hawlaha guud waxaan maqlaayay wasiirka hawlaha guud hore ayuu halkan u yimi oo ballan qaaday in uu joojiyo buurta la qodaayay la xorday ee soo dhacaysa inta yar ka hadhay marka waxaan ugu baaqayaa dadka mas'uuliyiinta ah ee ka mas'uulka buuraha ee xukuumadda ee wasaaradda hawlaha guud ee dawladda hoose ah in ay tallaabo degdeg ah oo dhaqso ah ka qaadaan si loo nabadgeliyo loo badbaadiyo buuraha ku xeeran xaafadda Maxamed Mooge waxa weeye dadkeenu waa garanaysaa waa la socotaan dhul baa lagu qaaday marka niman dhul cuna ayaa banaysanaya meesha oo dhul ka raadinaya waa aragtaan oo seesasbaaba laga samaystay taasina oo jirta oo dhibaato kale oo dadka dhul cunki ay ku hayaan deegaanka مثلا waxay dhibaatooyin fara badan bay leedahay dumista ay dumaysaa imika guryahaas oo kale ee malcaamada iyo masaajidka iyo u dhow khatarteeda leedahay roobabku marka ay daan wada aragtaa way soo go'aysaa ciidda halka ka muuqata imika waxa weeyaan waa ciid soo go'do xagga sare ka soo go'do marka dadka xagga sare ku nool ee maraya xoolaha xayawaanka dadka maraya way soo dumi kartaa waxaana ka mas'uulada waa xukuumadda iyo dadkan qodanaya meesha ee dhulka ka raadinaya